munaasabad ballaaran oo loo qabtay ardayda sanadkani galaysa jaamacadda Admas ee magaalada Hargeysa ayaa munaasabadani ujeedadeedu waxay daaranayd isdhexgalka iyo isbarashada ardayda cusub ee lagu soo dhaweynaya jaamacadda Admas ee magaalada Hargeysa. munaasabadani oo ka qabsoontay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaa ku sugnaa ardayda dhigata jaamacadda haatan iyo sidoo kale kuwa cusub ee lagu soo dhaweynaya isla jaamacadda Admas ee magaalada Hargeysa. waxaana munaasabadani ka soo qayb galay maamulka jaamacadda marti sharaf kale iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay xukuumadda Soomaaliland ardayda lagu soo dhaweynaya jaamacadda Admas. waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay sidoo kale maamulka jaamacadda Admas. waxaan daayirta uga warramayaa haddaba jaamacadda Admas waxaan kala kulmay muddada run markaan ka hadlo waxbarasho tayo leh, macallimiin kuwaaltigooda waxbarasho ay sarreyso. waxyaalaha sirta ah ee anigu aan ka markhaati furayo waxaa kow ka ah discipline nidaam. jaamacadda Admas waxaan ka markhaati kacayaa inay tahay jaamacad discipline iyo akhlaaq ama ethics aada ugu horumarsan. jaamacadda Admas runtii iyo maamulkeedaba waxaan uga mahad celinayaa tacabkii ballaarnaa ayna soo geliyeen. idinkana insha Allah ay idin gelin doonaan. gudoomiye Xuseen iyo dhammaan bahda jaamacadda Admas waan u mahad celinayaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. business walbaaba tartan buu leeyahay iyadoo dhegtana loogu rido war jaamacad malaha ma dhiganaysaan college baad dhiganaysaa. anagu jaamacadahan aanu tagnaa idinku college baad dhigataan, balse Axmed Naasir baa inaga jaahil saaro dariiqii saxda ahaa. waa jaamacad soo martay, waa jaamacad muddo badan hadda jirtay, kalsooni badanna aan ku qabo dadka ay soo saartaa markay dadaalkooda iyo tala saarashada Ilaahay ku daraan inay guul badan gaadhayaan. waxaan ku ammaanayaa maamulka jaamacadda oo Xuseen iyo Cabdinaasir Axmed Naasir iyo raggaasi u horeeyaan. waxa ay ku dadaaleen inay abuuraan hay'ad procedures leh oo nidaam leh oo aan ku shaqaynin qof oo aan ku shaqaynin xil ee ku shaqaysa shuruuc iyo nidaam la isla garanayo, oo ay wadaagaan baajajkii kala dambeeyay, oo ay wadaagaan macallimiintii kala dambeeyay ee jaamacadda wax ka baray ardayda. aad bay runtii dhiirigelisaa markaan arko Soomaaliland waa ogtihiinoo institutionku inay noo adkaadaan weli waa challengeska horteena yaallo weeyaan. Admas waxay ku guuleysatay runtii inay institutionkan Admas la yidhaahdo caga adag ku joojiso oo ay noqoto institution aan loo baqanayn mustaqbalka inay sii socon doonto. ardayda jaamacadda ku cusub waxaan leeyahay dacayado badan baad maqli doontaa. waxaa laga yaabaa waxyaabo kale inay iska soo baxaan. waxaasoo dhan dheg ha u dhigina. mar haddii aad hayaanka ama nolosha aad tallaabadeeda qaado inaad dib u dhac ama tallaabadaada xagga dambe aad ugu noqotaa waa nacasnimo. waa inaad wadataan, waa inaad ku dadaashaan, waa inaad commitment iyo waqti gelisaan. waa sidii hore xaggan looga sheegay yaanay waqtiga idiga lumin social mediaha iyo hawada yar ee daawashada sawirada, laakiin waqtiga geliya inaad social media ama baraha bulshadu waa midi laba af leh. dhankii wanaagsanaa iyo wixii wanaagsanaa iyo casharadii iyo waxaad doonaysay waad ka helaysaa. dhanka kalena wax xunna uu leeyahay waqtiga kaa luminaya. marka waxaan idigu boorinayaa oo idigu dardaarayaa inaad dhanka waxbarashada ka raacdaan. waxbarashada aad hadda bilowdeen dhaqanada ardayda ama xilliyadan aad kulley soo waajahaysaan aad u isku bedelay. dunidana hadda dhaxasheen aad joogtaanna aad bay uga duwan tahay dunidii. tusaale ahaan anagu wax ku soo bartay, laga yaabo waalidkiina wax ku soo barteen, faraq weyn baa u dhexeeya. haddii aad waajihi weydaan si fiicanna way idinku adkaan doontaa waxbarashadu, way idinku adkaan doontaa noloshu. waxa ay ku xidhnaan doontaa maanta oo aad bilaabaysaan jaamacaddiinnii inaad xaashi madhan aad ku bilowdaan. xaashidaa madhan waxba wixii aad ku qorato ayaa 3 sano soo socda ama 4 sano soo socda hadda barnaamijkaaga wuxuu yahay iyo mustaqbalkaaga inta ka dambaysa si fiican aad
midhaheega u qaadan doontaa. ilaahay safarka aqooneed eed u xidhxidhateen kuwa ku guulaysta kana midha dhaliya rabbigu ha idinka yeelo. marar badanna tusaalaan usoo qaataa ardaygu jaamacadda marka uu kusoo biro ama goobaha aqoonta sideedaba labunbuu u qaybsamaa. qof waktiga tiriya, bil baa dhammaatay, semester baa dhammaaday, sanad baa dhammaaday, oo hadhow toole muhiimkiisu uu yahay jaamacada heblaayaan ka baxay iyo shahaada heblaayaan sitaa, iyo qof aqoon iyo cilmi uu runtii u kordho oo xisaabiya ama tiriya waxa runtii uu kororsaday